laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo kursiga beeshayda shakhsi ma lahan waxaa iskale qabiilka iskale dadka isku u maleeyay inay tahay boqortooyo ma ahan boqortooyo waa wareegto 21 sano ayay gabar iyo wiil ku fadhiyeen miyaysan dhicin mudana wasiir labadii baarlamaan oo kii Jabuuti u dambeeyay qof reerkiina kamid oo tiraahdo walhayna Khadiijo bal markaan aan ka nasiyo xilibaan u baahanahay hadda maalinta la tartamayo waxa la farda la isugu hayo maxaa la isu faanin maaha qof iska dhigsanay iyo kan ma maalinta la tartamayo qof reerkayga ah kursiga Khadiijan ku tartamaa oo yaxara haduu yimaado anigu ma tartamayo ana u tanaasulaa hadalkaas waxaad ka tiri khudbada jeedinaysay dhowr jeer aan dhageystay waxaad ku celcelisay in xildhibaannimada aan hayo haddii wiil ama gabar reerka aan ka dhashay u tartamayaan ay soo istaagaan ana u banaynayo maalinta ay warqadooda geystaan kursi yaxar leedahan u tartamaa wiil iyo gabar haduu dhaho oo ka Khadiijo ku fadhida ah ana bixinaya maanta waxaa dhacday invitation ayaa noola fidiyay invitation kaas oo ahay gabadha walaasheena Khadiijo Maxamed Diiriye inay media ka sheegtay haddii laba qof oo beesheeda kamid ah ay ku soo xaadiraan Muqdisho maalintay xareystaan warqadooda diiwaangelinta inay iyada tanasulayso taasoo ay marqaati u qabsatay ilaahayna abuurtay asaawi jalle iyo bini'aadanka Soomaali ee taagan oo fiirsanay hal jeer ma ahayn laba jeer ma ahayn invitation kaasaan ku nimid anaga marka waxaan filaayay Khadiijo inay red carpet ii fidisay soo dhaweynayso because ayadaana wacatay ma fahmino reerka ma u diyaarisay qofku bedela mise fikta boort inta tagtaa tir inta kalena hoos ay iga joogaan naftirkaaga ma qayb qaadatay in qofku bedelo waan daalay caafimaad ahaan waxaan horaan u sheegay haddana waan sheegayaa aniga meel kale uma socdo inaan siyaasad ka nasto oon cariishka hooyaday aabahay oo Jowhar aan tago waa jeclahay laakiin haddana berri isaa dambe rajada alle lagama quusto baa dalkan ii hayso iyo aqbalaada ogolaashaha beeshii xar intaas anagu waan banaankan ka taagnayn wax walba dhaco ma ayna isku soo dayin sabab badan oo jira hanjabaad iyo wax dhacay ayaa jira sida uu ogtihiinba waxa magacii waa Baarliin Maxamuud Biin waxaan ahay musharax xildhibaan oo u cararaysa kursiga tirsigiisa uu yahay Hope 097 aan kursi beesha waxa dhab ah dad wax bartay qarniga 12aad nool digital age ah in laga helayo wax barto maanta awooda inay ku bedelaan armada adiga fursad siinay waxaan rabaa in aan Soomaali siiyo opportunity ay ku maqlaan cod aan ahayn gabadha walaashay ah oo kursiga ku fadhisay 22 sano reerkeena markii la yiraahdo qofka kaliya oo ay Soomaali maqlaayeen arkayeen iyada bay ahayd marka anaga waxaan nahay dad jira adduunyada ku nool aqoon-yahan leh sheekh leh shariif leh oo dad sharaf leh oo Soomaali oo dhan taqaana ah marka Soomaali wayna la yaabanaayeen inta sano oo aan ka maqnayn muuqaalka Soomaaliyeed iyo meesha dadka wax ku qaybsadaan namaba ceebaynin baa la leeyahay roots ahaan baa la leeyahay iska dhaaf yaxar way ugu amaana dadkeena waxay dhahan intii iiga horeysay kuwa faranjeer ku jiro aqoon heerkii la doono diini iyo maadi leh way jiraan dadkaygu wiilal iyo gabdhaba laakiin muqaddimaan ah gabadha walaasheena waxaan rabaa inaan ugu nasteexeeyo qof weyn oo xil haya tahay wasiirad magac leh ayaa tahay waxyaabaha qaar waa laga fiican yahay hadda iyo marka waxa inoo balan ah Jowhar iyo tartankii furnaay oo cadaalad ah